madaxweynaha jamhuuriyada somaliland mudane muuse biixi cabdi waxa uu soo saaray wareegtadaasi oo uu ku soo saaray la wareegista buugga dhaqdhaqaaqa gaadiidka ee loo yaqaano circulation book iyo sumadda tirsiga gaadiidka ee plate nambarka waxaanay u dhignayd wareegtada madaxweynuhu sida tan madaxweyne muuse biixi cabdi markaan arkay qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda somaliland markaan arkay qodobka 14aad faqradiisa koowaad iyo qodobka 50aad faqradiisa koowaad ee dastuurka markaan arkay xeerka wadamarista gaadiidka markaan garwaaqsaday in daryeelka iyo hantida guud ay tahay waajib saaran xukuumadda hantidaas oo haddii loo baahdo lagu wareejin karo oo keli ah si sharciga waafaqsan sida ku cad qodobka 12aad ee dastuurka dalka markaan xaqiiqsaday la soo noqoshada hantida dowladdu muhiimadda ay leedahay maadaama aanu jirin xeerka iskaashiga dowladda iyo ganacsiga gaarka ah markaan darsay muhiimadda ay leedahay in gacanta dowladda lagu soo celiyo hanti ahaan iyo maamul ahaanba buugga dhaqdhaqaaqa gaadiidka ee loo yaqaano circulation book iyo sumadda tirsiga gaadiidka plate nambarka markaan helay tala soo jeedinta guddida dhaqaalaha iyo horumarinta ee heer qaran iyo tala bixinta sharci ee heshiisyada dhex maray xukuumadda iyo shirkadaha hodan enterprise iyo GTC waxaan go'aamiyey in la buriyey heshiisyadii lagu wareejiyey adeegyada buugga dhaqdhaqaaqa gaadiidka circulation book iyo sumadda tirsiga gaadiidka plate nambarka in xukuumaddu gebi ahaanba la soo noqotay maamulkii gacan ku hayntii adeegii iyo qalabkii buugga lahaanshaha gaadiidka iyo sumadda tirsiga gaadiidka plate nambarka in wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska wasaaradda horumarinta maaliyadda xafiiska hantidhowraha guud iyo xafiiska xisaabiyaha guud ay keenaan qiimeynta dhabta ah ee dhaqaalaha ay shirkadaha hodan enterprise iyo GTS ku maalgeliyeen buugga dhaqdhaqaaqa gaadiidka circulation bookga iyo sumadda tirsiga gaadiidka plate nambarka iyaga oo darsaya qiimaha ay hadda suuqa ka marayaan marka ay cusub yihiin islamarkaana ka jaraya wixii duugow ah in wasaaradaha iyo hay-adaha ay khusaysaa ka gutaan waajibaadkooda sharci ee fulin qodobadan kor ku xusan in shaqaalihii ka howlgelayay adeegyadani ay shaqadooda u sii wadanayaan si caadi ah allah mahadle muuse biixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland